culimada waaweyn ee dalkani jamhuuriyadda Somaliland ayaa ku tilmaamay nabadgelyada iyo ammaanka buuxa ee dalkani iyo dadkiisu haystaan inuu yahay mid aan dunida isku sheegtay inay awood iyo dhaqaalaba horumar ka gaadheen ka jirin taayna tuu ilaahay loogu mahadnaqo isla markaana aanay shacab ahaan cidnaba ugu dulqaadan doonin inay cambaareen aanay geyn nabadda horumarka iyo wanaagga ka jira Somaliland ka faafiso sanad ka mid ah sanadihii ugu dambeeyay Mareykanka gudihiisa waxaa lagu dilay 1,000 kun sanad kaliya Mareykanka gudihiisa inta toos loo toogtay way Mareykanka gudihiisa 1,000 kun oo qof oo bini'aadmiya oo Mareykanka maanta empire ka adartay waxa way waa newsweekto warkii ay soo saartay way ma aha waxaynu ama dad muslimiin sheegeen ama Mareykanka intii uu sheegay way waliba iyagu intay tirsanayeen 1,000 kun macnaheedu waxa weeye bishii 2,200 baa dhintay macnaheedu waxay tahay 84 qof baa maalintii Mareykan ku dhintay waxa weeye hadda waxa weeye waa sanad kaliya way Mareykanka gudihiisa wala sanadihii ugu dambeeyay Mareykanka gudihiisa idan maanta hargeysa oo ogtihiin 1,300,000 kun ay ku nool yihiin miya 84 qof subhanallah Mareykanka maanta aad aragtay ee ilaahda indhaha quraanjada dhulka hoosteeda maraysa ayaanu aragnaa ilaah laga yaabo 3-4 dayuuradooda Mareykanka la sheegaya uu leeyahay Somaliland gabigeedaba masruufkeeda inay tahay Mareykanku sameeyay nimanka baayirkee islaantiina indhaha la ee banaanka cidada fadhida maanta ee dollarka u samaysatay shandada u samaysatay marka ay ku ridayso isagoo oo aan duuduubnayn ilaalinayso nimanka awooddaasi leh ee lacagtoodii sida loo ilaalinayo awoodda ilaahay baa leh laakiin de maanta quwadoodu halka taagantay way nabadgelyada Mareykanku halka ay taagan maanta 1,000 kun oo qof ay sanadkii dhintaan waa sanadihii ugu dambeeyay Mareykanka gudihiisa haddaynu ka warranno waqti baynaan u haynin waa 7 page way waxa halka aan ku hay inta xaaladood ee dil toos ah ee 12 ugu yar tahay 44 ay ugu badan tahay ee sanad kaliya Mareykanka gudihiisa ku dhacay ee ama iskuul ka dhacday ama jaamacad ka dhacday ama meel yani public oo mesela meelahan de sinimooyada iskugu yimaadaan ka dhacday ee inta tirada ugu yar ay ku dhinteen 12 ee qof intuu yimid intuu dadkii oo sidii masaajidka u joogay intuu dadkii laayay isaguna isdilay 200 oo xaaladood waa dhowrkii sanadood ee ugu dambeeyay iyadana kama yara Mareykanka gudihiisa idan باختصار الحمد لله ورودن كنا نبتكليا كجرت waxaan leeyahay talada iyaduna ay tahay war waxaynu doonaa in isku qabnee laakiin maanta inaynu inagu nidhaahno dunidii u sheegno war waxaan leeyahay sourceska dalka la ilaaliyo Sheekh Aadan Maxamuud Xiray Alasiro oo hadalkiisani qayb ka ahaa khudbadiisii Jimcaha ee masjidka Xawaale waxa uu si adag uga hadlay sida shakhsi nacayb iyo ujeedooyin gaar ah aan cidna looga ogolayn inay ku waxyeelayso wax qaran dhami wada ilaashanayo in ka badan 20 kun oo ciidana ayaa cid uga garasay shilinka kaasi qaato inaka askari shilinka uu qaato Somaliland oo dhani waxbay ku leedahay bi wajin aw bi aakhir waji dadban oo wareegaya ayaa adigna ku soo gaadhaysa waxaana waa bilow laakiin waxa weeye wixii marka uu ballaadho hadhow dadka oo dhan buu gaadhay barakallahu fiikum
waxay naga dhaxeeya ha la ilaaliyo dawladnimadeena ha la ilaaliyo war markaynu la hadlayno dadkan dibadaha kuwa wax qorqoraya ina yaro subxaanallah war waxa qoraysaan ereyadiina wixii dibadda u baxaya aad iyo aad loo ilaaliyo macluumaadkii oo dhan dunidii waqti baad facebookaasi ku wada jirta waa qarya waaxida dunidii oo dhan haddaad iska qorto hadal kooban oo dalka khuseeya oo laakiin dhowr macno bixinaya innaga qur'aanku ila dad islaamayna yaa ayuha aladiina aamanuu in jaakum faasiqun binabayin fatabayanu war waxa la qoraya hala ilaaliyo saxaabi ka mid ah saxaabadii rasuulka ayaa ilaahay yidhi waa faasiq ilaahay qur'aanka ku yidhi bal ereygaa u fiirsada ilaahay baa qur'aanka ku sheegay kelmaddaasi magacaa ilaahay baa bixiyey saxaabi dhan baa ilaahay yidhi maxaa faasiq loogu tilmaamay been buu sameeyey baa la yidhi laysku dili gaaray ereyga adkaantiisa ya markaad tidhaahdo somaliland maanta hargeysa nabadgelya kama jirto qofku uu qorayo afartii habeennimaanu sii soconee xaggee adeer ka jirtaa noloshaasi maraykanka streetis dhan ayaanad mari karin adigoo $1 sita maanta wadiga arkaya hargeysa bartankeeda 100 islaamood oo cagihii ka fadhiistay oo aan kici karayn subxaanallah ayaa mid walba 2 kiilo oo dahabi hor yaala oo ilmaha yare 10 jirkii kala carari karay maxaa ku kalifaya 2 kiilo oo dahaba qof dumara oo da' suuqa bartankiisa inay dahabka intaa leeg ay ku haysato oo aan mid ahayn oo aan 2 ahayn oo aan 3 ahayn oo boqolaal ah oo maanta aynu taagano imika markaad tagtaad ugu tagaysa war dollarkan meesha yaalla ee shan ku jira muxuu ahaay kartoonkan yare aragtee saara iyo boqolaalkan milyan ee Somaliland ee wadada daadsan yaa ilaaliya oo ay ninka la xoog baan ku ilaalin halkiisa dunida ka jirta wanaga ka warramayna Mareykankii dunida haystay dunida oo dhan kaadis bay wada isticmaashay waa ay cid kaash la soo bixi kartaa wadamada ugu waaweyn maanta dunida gudaheeda idan haddaad tiraahdo nabadgelyo ma taalo waddankayaga innagoo markii horeba meel cidla ah fadhinay dayuuradii dadkaaga u adeegaysa ee maatidaada qaadaysa imise dumara imise carruura oo maanta samarkii inoo yimid ayaa magaalada daadsan oo cid allaaliya cid kala gurta maanta la karis xun iyaduna ku la yaa dacaadeynaysa markaad tiraahdo nabadgelyo ma jirto ninka maanta dayuuradu ay isagu qaadaya halkoodii ku celinaya halkii buu jooga gabagabadii sheekh aadan maxamuud xiire aadan siro waxa uu ka digay bulshada reer Somaliland in aanay ishraa'iga kala duwan ee dalkani doonaya inay maal gashadaan isla markaasina dadkiisu uu ka helo awood dhaqaale aanay propaganda iyo wax ku tiri ku teena aanay ka faafinin balse ay ku dadaalaan sidii ay u kasban lahaayeen una soo dhaweyn lahaayeen isla markaasina shakhsi iyo shacbiba loo guntado